بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada kulan labaad iyo barnaamijkeennii ku saabsanaa hogaaminta aynu kasoo hadalnay saddexdiisii xalqadood ee hore qaybo kala duwan. Maantana insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa hogaaminta iyo waxa islaamku ka yidhi iyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sidii uu ina faray iyo waxyaabihii muhiimka u ahaa maxaa la odhan jiray dadkii uu xilka ilaahay subxaana watacaala usoo dhiibay uu u diyaarinayay inay meel gaadhsiiyaan. Runtiina dadkaa uu diyaariyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam meel fiican ayay gaadhsiiyeen ilaa aynu maanta inagu raadkiisii hayno oo wax magaranaysaa madmadowga iyo wax magaranaysaa isdabamarina midna aan lahayn. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inagana ina waafajiyo sida khayr kale. Nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya hogaaminta dadka muslimka ah waxaa jira xadiis caam ah oo uu leeyahay kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun can raciyati. xadiiska uu leeyahay marka wuxuu ka warramayaa cid kasta oo xil haysa inay mas-uul tahay ilaahayna subxaana watacaala maalinta qiyaamaha kala xisaabtami doono cid kale oo u xil saarayaana aanay jirin. waayahay marka mas-uuliyadda nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay halkay kasoo bilaabantay halkayna ku dhammaatay. mas-uuliyaddaasi waxay ka bilaabantay qofkii ummadda madaxda u ahaa ayay ka bilaabantay, waxaanay ku dhammaatay qofkii addoonka ahaa ee lalahaa oo isagu aan waxba lahayn ayaa haddana waxaa la leeyahay mas-uul baa tahay, hogaamiye aad tahay, waxaanad hogaaminaysaa cidda aad hoos timaado waxa weeye wixii ay kuu dhiibteen inaad sideeda ugu ilaaliso. marka islaamku mas-uuliyadda iyo xilka iyo hogaaminta waxa uu xoogga saaray waxa weeye waxa la yidhaahdo allahuma salli calaa maxamed laba shay oo ah sidii ay aayaddii nebi muuse iyo markii uu ariga u waraabiyey hablaha ee ay usoo noqotay ee aabbaheedu sheegaysay ayaa culimmadu waxay yidhaahdaan qofka madaxda ah ama la doonayo inuu hogaamiye noqdo ama doonayo inuu hogaamiyenimo u diyaar garoobaa waa in laga helo labadan shay. yaa abati istajirhu ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin ayaa aayaddu hayd. aabbahayow ninkan shaqaalee cid aad shaqaalayso waxa ugu wanaagsan qof awood leh oo ammaano leh. marka runtii labadaa markaynu xadiiska iyo aayadda isu geyno waxa inooga baxaya waxa maanta hogaaminta caalamka laga warramo oo dhammi ay ku dhisan tahay ayaa inooga baxaya oo runtii ah waxa la yidhaahdo qof waliba inuu mas-uul yahay, qof waliba inuu mas-uul yahay. hogaamintuna inaanay ku fadhiin ay shakhsi tahay ee qofka ka bilaabanto sidii aynu bilowgii kusoo sheegnay. waxa weeye hogaamintu ma aha inaad xil hayso, hogaamintu ma aha inaad cid uun hor fadhido oo aad madax u tahay. hogaamintu waa shakhsi waxa laguu dhiibay keligaa. waxa weeye adduunyadu way isdhamaystirtaa. adduunyada qof keligii wax walba qabtaa ma jirto, adduunyada qof keligii wax walba yaqaanaa ma jiro, adduunyada qof keligii wax walba karaa ma jirto. waxaynu u baahannahay bulsho inay dhisanto, waxaynu u baahannahay ciddii bulsho dhisi lahayd in la diyaariyo, waxaynu u baahannahay inaynu fahamno sida bulshada loo dhiso inaga oo raacayna sharcigeena islaamka iyo waddadii uu inoo jideeyey nabigeenu sala allahu calayhi wasalam. marka runtii waxaad arkaysaa oo xaqiiq ah waxan hore ee aynu ka hadalay oo dhammaantood waxay u noqonayaan diinteenna. dee diinteenuna waa diin dhammaystiran oo ilaahay subxana watacaala xaggiisa ka timi oo waxa weeye wax ma garanaysaa madmadowga iyo ceebaala toona aan lahayn marka laga taga qaladaadka ibni aadamku ku dhacayaan. waayo diinta iyo muslimka iyo islaamku way kala duwan yihiin. islaamku wuu dhammaystiran yahay laakiin qofka muslimka ah wuu qaldamaa, waxa weeye waxbaa ka qaldama. marka runtii markaynu qodobkeena usoo noqono waxyaabahaynu u baahanay waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo qofka muslimka ahi sidiisuu mas-uul u yahay. ilaahayna subxaana watacaala ambiyada dee muu soo raacin ciidamo malaa'iga ama ciidamo uu isagu u diyaariyey ee dad caadiya bay ahaayeen, dad caadiyana way u yimaadeen allahuma salli calaa maxamed si ay dadka nool wax walba tusaale ugu noqon karaan. marka macnaheedu waxa weeye ilaahay subxana watacaala awoodda uu ina siiyey iyo ma garanaysaa doorashada uu ina siiyey waxa weeye in uu inoo caddeeyey laba jid. labada jid markaa ka aynu raacna uu inagula xisaabtami doono.
ilaahay subxaana watacaala sidii suuraddii kahfi aayaddii suuratlkahfi ku jirtay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba. qofna la odhan maayo waa markhaatiyadii baa jooga, jirkiisii baa ku markhaati furaya, haddana kitaabkiisii baa loo keenaya, waxa laleeyahay akhriso, waxa weeye adaa isku filanaad akhride. marka runtii macnaha qofka muslimka ah waxaa laga rabaa in uu sidiisa u noqdo mas-uul. qofka muslimkaana diinta islaamku qawaacidday u dhigtay waa inuu sidiisa mas-uul u yahay. qalbigiisaa la dhisaa, iimaankiisaa la dhisaa, alla ka cabsigiisaa la dhisaa. waxa weeye allahuma salli calaa maxamed, waxaa la dhisaa inuu ilaahay un iska eego, aanu cid kale iska eegin, ayaa diintu dhistaa. marka waxa weeye qofku markuu levelkaa gaaro sidiisa ayuu u noqonaya hogaamiye rasmiga. ilaahay subxana watacaala waa kale yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunu allaha warasuula watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun. waxa weeye qofku hadduu ilaahay waajibkii uu saaray kasoo bixi waayo, hadduu qofku ilaahay waajibku saaray kasoo bixi waayo, waajib kaloo kasoo baxayaana ma jirto. marka ammaanada iyo quwada la inoo sheegaya laba weji bay u kala baxayaan. markaynu ka hadlayno quwa ama markaynu ka hadlayno awood inuu qofku leeyahay, awood waxa weeye siduu dadka u kala xukumayo, siduu cadaaladda u samaynayo, siduu maxaa la yidhaahdaa sinaanta u ilaalinayo, sida uu maxaa la yidhaahdaa cidda leexleexata u qabanayo. waxa weeye cilmi inuu u leeyahay, quwada cilmigaa ka mid a inuu cilmi u leeyahay waxaanu qabanayo oo waxa weeye maalin walba kororsanayo oo sii kordhinayo. markaynu dhinaca quwada ka hadalno, dhinaca ammaanada markaynu ka hadalnana waa tan aayaddan aynu akhrinay sheegayso ee ah ilaahay ha khiyaamaynina. waxa weeye ammaanadiinana waad khiyaamayn doontaan. macnaheedu waxa weeye waa alla ka cabsi iyo qofku inaanu cidna wuxuu hayo cid aan ilaahay ahayn uga cabsan. haddaad aragto qof waxa weeye dad iska eegaya, haddaad aragto qof dad ka warwareegaya, haddaad aragto qof dad isku dayaya inuu raali geliyo, raaligelinta dadku wax la gaadho maaha. dadkuna weligaa haddaad wax kasta u samayso kaa raali noqon maayaan. marka runtii markaynu qodobada si kooban u nidhaahno, waxa weeye qof waliba waa mas-uul. qof walibana wuxuu mas-uul ka yahay halka uu joogo iyo waxa uu hayo iyo xilka uu hayo, oo ka bilaabmaysa naftiisa oo ku dhammaanaysa xilka ummadi u dhiibato levelku doonaha noqde. hogaamintuna waxa weeye qofku level kastuu joogo waa hogaamiye. qofku level kastuu joogo waa hogaamiye. hadduu halku joogo si fiican u hogaamin waayana meel ka sarreysana ma hogaaminayo. qodobka labaad ee aayadda aynu ka soo qaadanay ah quwada iyo ammaanada, waxa weeye qofku waa inuu garanayo, allahuma salli calaa maxamed, waxa la yidhaahdo dadka siduu ugu cadaalad samayn lahaa, siduu maxaa la yidhahdaa arrimahooda u ilaalin lahaa, siduu cidda gafta u sixi lahaa, siduu cidda magaranaysaa saxan u garabgeli lahaa, siduu wixii magaranaysaa hagaagsan u taageeri lahaa. marka lasoo ururiyo, quwadu waa dhinaca maamulka iyo cadaaladda iyo nidaam wanaajinta. marka laga hadlayo ammaanaduna waa alla ka cabsiga iyo aakhira ilaalinta iyo inuu qofku ahaado mid wax kastuu qabanayo ilaahay xaggiisa iska eegaya. qof wax kastuu qabanayo ilaahay xaggiisa iska eegaya oo cabsida ilaahay ku jirto, oo wax kasta oo uu samaynaya leh maxay ilaahay subxaana watacaala miyuu kuugu cadhoon doonaa mise wuu ku farxi doonaa inaad waxaa samayso. marka runtii marka aynu nidhaahno sharcigeenu hogaaminta wuxuu gaadhsiiyey levelka ugu sarreeya ee cidi gaadhsiiso. nabigeenana calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxana wataala wuxuu nagu yidhi walakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. tusaalaha aynu ka soo qaadanayno hore aynu u sheegnay oo waxa weeye wax kasta oo aynu isnidhaahno kaga dayda ma gaadhi karno. cidda aad ku dayan karto ee waxa weeye aad daba socon karta ee ilaahay subxana watacaala kuu diyaariyay waxa weeye cid wax kastoo aad samayso aanad gaadhi karin. ku dayashana waxa kuu noqon kara qof aanad gaadhi karin, laakiin qofaad maxaa gaadhi karto ilaahay subxana watacaala wuu ka xikmad iyo maxaa la yidhaahdaa cilmi badan yahay inuu tusaale inooga dhigo cid aynu waxay samayn karto oo dhan samayn karno. inagu calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo uu dadka faray waxa uu ahaa ka ugu badsada. waxa uu ahaa wax kasta oo ibni aadamka laga doonayo iyo qofkii hogaamiyaha wuxuu ahaa qof ay u dhammaystiran tahay. marka runtii waxaynu odhan karnaa dhinaca hogaaminta haddaynu diinteena cilmi badan u yeelano oo baadhno, waxaynu ka helaynaa waxyaabo aan maskaxdeennu suuraysan karin, waxyaabo aan research kasta soo saari karin. laakiin innaga ayay mas-uuliyadeenna tahay
in aynu fahamno oo dabagalno oo baadhno oo dhinac kasta oo nololeed hogaaminta oo keliya maaha nolosheena dhinac kasta oo ka mid ah inaynu diinta ka baadhno oo dabadeedna dabaqno oo isticmaalno. marka inta aynu xalqada ku xigta ku kulmi doono ama kulanka ku xiga isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aadna wada mahadsantihiin.